بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوداشا قيمها يقدرت نجمدن ميل والبواد جوجتان كسر هذا برنامج كنا فلانقين تحكت عالمك تاريخ دو على بش ديسمبر سنة كلابك وسدح لبعتن داوداشا قيمها نجمدن برنامج كنا قيبتن هدي لها وود لأورالك نقضوا حينكو فلانقين دونا حيل الله يابله أو أيلا صوبحين كحاس كعابين فلسطينيين تا diyaaradaha daroonka ay adeegsanayaan ee markan baabi'inaya taangiyada ciidamada Israa'iil waxaan idin haynaa xog iyo macluumaad arinta ku saabsan waxaad kaloo barnaamijka ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay duqeymo culus oo ka soconaya marinka Gaza diyaaradaha gumeysta Israa'iil oo dadkii ugu badnaa oo shacab dilay warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan waxa dhacay 24 saac ee la soo dhaafay iyo duqeymaha iyo dagaalada socda maabka ay ciidamada Israa'iil u sameysteen marinka Gaza si ay dadka u laayaan inta nabadda ku badbaadama inta duqeymahooda ka badbaadayna ay u barakacaan barnaamijka qodobadan oo dhan ayaad ku daawan doontaan marka la soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto muuqaalka share gareyso like gareyso channelka subscribe saarato furagan balaalka si aad u noqoto daawadeen ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagalaynaa iyo weliba falanqayntiisa haddii aynu ku bilowno sida la wada soconaba dagaalo culus ayaa ka soconaya marinka Gaza iyada oo kooxaha Falastiiniinta ay markan u muuqdaan kuwa la soo baxay xeelada aad ay ula yaabeen ciidamada Israa'iil oo lagu baabi'inayo taangiyadooda dagaalka hase ahaatee bal wararkii ugu dambeeyay haddii aynu isha marino wararka hadda soo dhacaya waxay sheegayaan in Falastiiniyiin u badan caruur la dilay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn Israa'iil ka geysatay magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza duqeynta waxay qayb ka tahay duqeynta ciidamada gumeysigu ay ku hayaan deegaanada dadka shacabka ay kaga sugan yihiin Gaza guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha ee Falastiin waxa uu leeyahay tirada dadka ku barakacay Gaza waxay gaartay 1,800,000 oo qof oo muwaadiniin waxaan ugu baaqaynaa qaramada midoobe iyo waliba dhammaan hay'adaha caalamiga ah inay gutaan waajibaadkooda ku aadan joojinta xasuuqa waxa ka socda Gaza waa xasuuq ayay yiraahdeen guddigan geesta kalena ciidamada Israa'iil ayaa ka dalbaday dadka degan Jabaliya al-Shujaaciya iyo waliba al-Zaytuun iyo sidoo kale magaalada qadiimiga ee Gaza in ay ka baxaan guryahooda oo yacni ay barakacaan wariyaha Al-Jazeera waxa uu soo sheegayaa in la maqlay qaraxyo waaweyn lagana maqlay magaalada Kasifim ee marinka Gaza guutada Al-Quds ayaa sheegatay in ay deegaankan ku duqeeyeen gantaalo nooca lahaga ah agaasimaha difaaca madaniga ee waqooyiga Gaza waxa uu sheegay in marinka uu u baahan yahay qodayaal iyo cagafyo si loo xoojiyo dadaalada samata bixinta ah wariyaha Al-Jazeera waxa uu soo sheegay in laba Falastiiniin lagu dilay duqeyn Israa'iil ka geysteen guri ku yaala magaalada Hamad ee galbeedka Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaana wariyaha uu tilmaamay inay jiraan qasaarooyin iyo dhimasho dhaawacba leh oo ka dhashay weerar ciidamada Israa'iil ku qaadeen guriga ku yaala deegaanka lagu magacaabo isna Bani Suhayla ee bariga Khan Yunis dhanka kalena wakaalada wararka Reuters ayaa ka soo xigatay sarkaal Israa'iili ah oo ku sugan magaalada Washington in siideynta tirada ugu badan ee maxaabiistu ay tahay mudnaanta koobaad ee Tel Aviv isagoo intaasi ku daray in Israa'iil ay diyaar u tahay inay siiso hakadyo dheeri ah yacni joojin xabadeed iyo wada hadal inta dagaalka uu socdo sarkaalkan ayaa sheegay in Israa'iil ay Washington iyo qaramada midoobay kala shaqeynayso sidii loo dhimi lahaa dhibaatooyinka loo geysto dadka rayidka ah dhankeedana jariirada Wall Street Journal ayaa sidoo kale soo xiganaysa sarkaal Israa'iil oo sheegay in Tel Aviv ay u furan tahay in laga wada xaajoodo xabad joojin iyo maxaabiista inta dagaalka uu socdo duqa magaalada Hawara oo ku taal koonfurta Nablus ee daanta galbeedna waxa uu sheegayaa in maamulka gumeysiga Israa'iil ay la wareegeen ilaa 5 dunum oo dhul ah oo magaalada ah arrimo ciidan awgeed wariyaha Al-Jazeera waxa uu soo sheegay in laba qofood oo Falastiiniin hadda ay ku dhinteen duqeymo Israa'iil ay la beegsatay magaalada lagu magacaabo Muqarraqa ee bartamaha marinka Gaza guutada Al-Qudsna waxa ay sheegtay in ay dagaal adag kula jiraan ciidamada cadowga Israa'iil galitaanka xaafadda Sheikh Radwan iyo aagaga Al-Taqaddum waqooyi galbeed iyo koonfurta Gaza halkaas oo la sheegayo in iska caabin aad u xoogan ay ka soconayso haddii aynu eegno markan iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee ay baahiyeen waxa ay ku muujiyeen in uu jiro wax ay ku soo kordhiyeen howlgalkooda waxaa la arkayay in ay ku weerareen goobaha ay ku sugan yihiin taangiyada Israa'iil diyaarada aan duuliye lahayn
ee loo yaqaano kamikaze ama kamikaze waxay u muuqataa in wareegga labaad ee dagaalka uu noqon doono wareeg ay diyaaradahan ee loo yaqaano kamikaze iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee kale ee xambaara gantaalaha iyo waxyaabaha qarxa loo adeegsan doono lamana arag gujigii hore ee dagaalka yacni kuma aanay badnayn howlgalka. dhinaca kale telefishinka ABC wuxuu sheegay xabad joojintii toddobaadka socotay inay guul u ahayd iska caabinta ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba, waxayna uga faa'iidaysteen inay dejiyaan xeelad dagaal oo cusub. mid ka mid ah waxyaabaha ku dhaliyay iska caabinta inay xabad joojin raadiyaan ayaa ku sheegeen ujeed ay ka lahaayeen si ay dib ugu qalabeeyaan ama isku qalabeeyaan u hubeeyaan iyo weliba inay aagag cusub la geeyo dagaalamayaashooda. taasina waa ay u suura gashay oo maanta muuqaalada lasoo bandhigayo waxaa la arkayaa ilaa 4 ka mid ah taangiyada ciidamada Israa'iil oo meel qura ay ku weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aan soo sheegay, kuwaas oo waxyeelo ba'an u geystay taangiyada ciidamada Israa'iil. ciidamada lugta marka la fiiriyo dagaalka soconaya jab xoogan ay kala kulmayaan waa ciidamada Israa'iil taangiyadooda ayaa la burburinayaa, waxaa la burburinayaa dabaabaadkii kale dagaalka ciidamadoodii ayaa la leynayaa. marka dagaalka dhul ahaan aad ayaa looga sareeya looga awood weyn yahay yani ciidamada Israa'iil oo iska caabinta Falastiiniyiintu ee xaqoodirka ah ee dhulkooda difaacanaya ayaa ka awood sareeya. xawaana xaqiiq yani xitaa cid walbo taageersan Israa'iil ay ogtahay waxa soconaya inay yani awood ahaan dhulka ciidamadan looga awood badiyay. Israa'iil dagaalkan qasaaro badan ayaa ku soo gaaray, taangiyo badan waa looga gubay, yani iyagu shacab ay leeynayaan, laakiin kooxahan iska caabinta Falastiiniyiinta bartilmaameedkooda waa ciidamada iyo taangiyadooda. sidoo kale maaliyad markii la yiraahdo dhaqaale badan oo balaayin dollar ah ayaa ka qasaartay inta uu dagaalka socdo. sidoo kale Israa'iil waxa suuqa ka baxay dhammaan hubkii ay iibin jirtay oo dalalkii gadal lahaa dhammaantood way iska diideen, haddii ay ahaan lahayn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, haddii ay ahaan lahayn taangiyada, dabaabaadka, nidaamyada Iron Dome, yacni nidaam walbo isticmaalayeen Israa'iil markii la arkay in kooxaha Falastiiniyiinta oo hub aan xooganin xitaa haysto inay burburinayaan taangiyadan. waxaa la yiri laguma aamini karo dawlad kale in lagula dagaalamo, saas darteed Israa'iil waxyaabaha carada ku dhaliyay ayay taasi ka mid tahay. dhanka kale haddii aan hal iyo labo aynu eegno dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo wixii dhacay saacadii la soo dhaafay, ku dhawaad 200 oo qof ayaa lagu dilay, in ka badan 700 oo kalena waa lagu dhaawacay maalintii labaad dagaalka dib uga soo cusboonaaday Gaza, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka Gaza. dadka ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca u gaaray waa caruur iyo haween, iyadoo wasaaradda caafimaadka Gaza ay sheegtay dadka dhaawaca ah in lagu arkay isbedel ku yimid jirkooda. Israa'iil waxay burburinaysaa nidaamka caafimaad ee waqooyiga Gaza. warbixinta wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sidaas lagu sheegay. weeraradii ugu dambeeyay ee saq dhexe soo bilowday xalay waxaa ka qayb qaadanayay doomaha Israa'iil ee ku sugan xeebta Gaza. goobaha ay ka dhaceen weerarada naxdinta leh ee Gaza, telefishinka Al Jazeera ayaa ku sheegay bartamaha Gaza oo la beegsaday suuqa Yarmouk, waqooyi galbeed, xaafadaha ku yaala iyo koonfurta Khan Yunis, Rafah iyo sidoo kale Al-Qarara. diyaaradaha Israa'iil ayaa maanta waxa ay burburiyeen 3 guri iyo 3 masjid oo ku yaala Khan Yunis. Al Jazeera ayaa sidaas tabisay. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay xalay duqeeyeen in ka badan 400 oo bartilmaameed guud ahaan marinka Gaza. war-saxaafadeed ayaa ku sheegeen iska caabinta Falastiiniyiinta Gazana waxay sheegeen in iska horimaadyo toos ah inay kula galeen ciidanka Israa'iil xaafadaha Sheikh Radwan iyo sidoo kale aagaga Al-Taqadim iyo waqooyi galbeed iyo koonfurta Gaza. weerar madaafiic ay u adeegsadeen ayay sidoo kale sheegeen inay iska caabintu la beegsadeen ciidamada Israa'iil. Xisbullah ayaa iyana dhankeeda ilaa 10 weerar ka fulisay tan iyo xalay saldhigyada iyo deegaanada Israa'iil ee ku yaala xadka Lubnaan, sida uu wariyay telefishinka Al-Meydaan. Israa'iil waxay diyaarisay qorshe ay uga dhisayso Gaza aag difaac, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. wakaaladda wararka Syria ee Sana ayaa ku warantay iyana in duqeymo dhanka cirka ah inay Israa'iil ka geysatay duleedka magaalada Dimashq. ra-iisul wasaaraha Belgiumka Alexander De Croo ayaa sheegay in uu la hadlay madaxweynaha Israa'iil uuna ku baaqay in la joojiyo dilka dadka rayidka ah. Tel Aviv, qoysaska maxaabiista ku haray Gaza ayaa dhigaya isu soo baxyo. dacwad oogaha maxkamadda ICC Karim Khan ayaa kula kulmi doona Ramallah Abbas. wuxuu ku hormaray Israa'iil isagoo socdaalka ku sheegay inay codsadeen dadka qoysaskooda la afduubtay. isku soo baxyo looga soo horjeedo dagaalka dib uga qarxay Gaza ayaa la filayaa in ay maanta ruuxaan wadamada Yurub sida Faransiiska, Belgiumka, Spain, UK iyo Jarmalka
ay ugu horeeyaan si lamida Mareykanka, Canada iyo Chile ay uga dhici doonaan. Gaza waa meesha ugu khatarta badan caalamka ee ay caruurta ku noolaadaan. Madaxa UNICEF ayaa sidaas sheegay. Mareykankana waxa uu taageero military oo hor leh u diray Israa'iil. Wall Street ayaa sidaas baahisay. Iran waxay tilmaantay kooxaha iska caabinta ee ku sugan meelo ka baxsan Gaza in ay doonayaan weeraro kuwii hore ka xoog badan inay qaadaan. tanna waxaa sidaas sheegay wasiirka arrimaha dibadda Iran oo uu tilmaamay in ay tani ballaarin doonto isku dhacyada. 60 saxafi ayaa lagu dilay Gaza tan iyo markii uu dagaalka bilowday. 54 kamida waa Falastiiniyiin. wargeyska Wall Street Journal waxa uu sheegay in sirdoonka Israa'iil ay diyaariyeen qorshe ay ku doonayaan in lagu dilo meel walba oo ay joogaan hogaamiyaasha Hamas. dhanka kalena haddii aynu eegno ciidanka Israa'iil waxay daabaceen qariir cusub oo ay ku muujinayaan habka uu yahay wajiga labaad ee howlgalkooda, waxaana marinka Gaza loo qaybiyay 4 geesood yaryar oo tirooyin lagu xardhay. sida aad ka arki kartid sawirkan, guuto kasta oo kamid ah ciidanka Israa'iil ee gudaha u gala Gaza waxaa loo sameeyay aag ku dhisan lambar, waana tiro ka badan qariirada google ku jirta ee guryaha ee la degan yahay Gaza. sababta ay u dejiyeen istiraatiijiyadan waxa lagu sheegi karaa inay uga dan leeyihiin haddii ay dhacdo weerar kasta oo lagu qaado ciidamada Israa'iil ee gudaha u gala Gaza. taliyaasha ciidanka waxay og yihiin tirada goobta ama xaafadda uu weerarka ka dhacay iyo sidoo kale guutada mas'uulka ka ah halkaas. iyadoo taas laga duulayo waxay og yihiin qorshaha ay tahay inay markan sameeyaan xeeladan military ee gaarka ah. waxay u badan tahay inuu Mareykanka u dejiyo Israa'iil maadaama ay horey dagaallo ugu adeegsadeen xeelad midan la mid ah. laakiin maxay ciidanka Israa'iil u daabaceen qariiradan? sida aad og tahay, hadafka Israa'iil ee duqeymaha bahalnimada ah ee sida ula kaca ah ee rayidka loogu bartilmaameysanayo waa argoosi iyo qorshe lagu barakicinayo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza. laakiin wajiga labaad ee howlgalkan waxa uu sababi karaa falcelin ee ka timaada ra'yiga dadweynaha adduunka in Israa'iil iyo dalalka reer galbeedka ee taageero la geliyo xaalad adag, gaar ahaan maadaama dalalkan lagu tiriyo kuwa ugu xoogan ee difaaca xuquuqda aadanaha. marka waxaa laga yaabaa inaan aragno ciidanka Israa'iil haddii ay dhacdo in cadaadiska dadweynaha ee Israa'iil uu kordho oo daabaca tirada guryaha la degan yahay ee ay duqeeyeen. haddii ciidanka Israa'iil marka ay daabacaan tirada goobaha la beegsan doono ka hor weerarka, waxay awoodi doonaan warbaahinta taageerta Israa'iil inay ka dhigi doonaan ra'yiga dadweynaha sidii in ciidamada Israa'iil ay ula dhaqmaan dadka rayidka ee Gaza hab iyaga ka ilaalinaysa goobaha weerarka. si kale waxay ciidamada Israa'iil aaminsan yihiin in qorshahani uu faa'iido u leeyahay barakicinta dadka degan Gaza. tusaale ahaan, haddii ciidanka Israa'iil ay daabacaan tirada goobaha ama xaafadaha oo ay yiraahdaan meel hebel ama xaafad hebel, waxaa lagu qaadi doonaa weeraro joogto ah, bayaankuna uu gaaro dadka rayidka ah ee degan. cilmi nafsi ahaan waxay ku dhalin doontaa cadaadis daran, waxayna ku qasbi doontaa inay ka baxaan guryahooda. haddii ay guryahooda joogaan oo lagu dilo duqeynta, ciidamada Israa'iil waxay oran doonaan waan u dignay, laakiin digniintii iyaga ayaan qaadan ama ma aanay dhageysan digniinteena. haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada? fadlan qaybta hoose commentiga noogu reeb. aan u duceyno walaalaheen Falastiin.